waxaan rabaa inaan ka sii warbixin kooban xafladihii isdaba joogga ah ee ka socday caleemasaarka madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo maalintii shalay ahayd 12 bisha halkan ka dhacay caleemasaarkaasi waxa uu kulmiyey dhammaan madaxda Soomaaliyeed iyo marti sharaf kala duwan oo ayaguna ka yimid wadamada dariska iyo ku qaybsanaha qaramada midoobay Soomaaliya shirka madaxda Soomaaliyeed ee ka soo qayb gashay waxay kala ahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaare Umar Abdirashiid Ali Sharmaake madaxweynaha dawladda Puntland mudane Abdiweli Maxamed Ali Gaas madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha Galmudug mudane Abdikariin Xuseen Guleed madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Sheekh Shariif Xasan Sheekh Aadan Baalino shirkaas shalay markii caleemasaarka ay nagala soo qayb galeen la soo hambaliyeeyay waxaa markaa kadib loo dareeray dhanka madaxtooyada iyadoo hal iyo labo iyo saddex loo hadlay ilaa saakan uu socdo wada hadalka kadibna waxaa noo bilowday shir horey aan loo qorshayn laakiin maadaama fursadii ay jirtay oo fursad fiican oo la isku arki karo la wada hadli karana ay jirtay baan saaka waxaanu galnay shirka aynu galnay madaxdoo dhan way ku dhammaayeen waxaa nagala soo qayb galay wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia Dr. Tedros iyo ku qaybsanaha qaramada midoobay mudane Nicholas Kay shirka markuu furmay waxyaalihii ugu badnaa oo laga hadlay waxaa ka mid ahaa bal laba qodob oo ugu waaweynaa qodobkoowaad wuxuu ahaa aragtida 2016 iyo howlahan hor yaalla qodobka labaadna wuxuu ahaa waxyaalaha xoogaaga dhex jira isfahamwaaga ama waxyaalaha hadii jiraan la kala tabanayo in ayadana laga hadlo marka labada qodob baa loo kala saaray qodobka koowaad maadaama howlo aad u tiro badan ay wadanka Soomaaliya hor yaalaan oo ku saabsan 2016 waxaa la isla gartay howlahaas oo ay ugu horeeyaan maadaama aysan suuragal ahayn saddex qodob ay soo qaadeen shirkii sare ee ka dhacay bishii Agost 29keedii 30keedii lagu go'aamiyay inaysan suuragal ahayn codayn hal qof iyo hal codayn aysan suuragal ahayn in bal talo la isugu laabo talooyinka marka la isugu laabanayo ay noqdaan mid loo dhan yahay dadkoo dhan ay isku tala ka dhiibtaan sidaa darteed waxaa halkan la isugu yimid in bal wax la iska yiraahdo waxyaalihii la siiyay marka waxaa ka mid ah maadaama halkan madaxda qaarkood sida Puntland oo kale ay tiri anagu waxaan u nimid kaliya ka qaybgalka caleemasaarka in maaragtay mowduuc kalena ay tahay in loo soo diyaargaro wada tashi lagala soo sameeyo dadka sidaa darteed waxaa la isla gartay in la siiyo 7 maalmood oo bisha 20keeda uu dhici doono shir kale oo madaxda isugu iman doonaan axad soo socdo weeyaan shirkaasna uu ka dhici doono hadda sida la isku raacay Muqdisho u badan tahay laakiin wada hadallada wali socda oo bal in meel kale noqon karto lagu yeesho Muqdisho uu ka dhaco shirkaas waxaa weeye consultative forum ama kii dhammaan looga wada hadli lahaa madaxweynayaasha dawlad goboleedyada iyo madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha iyo ururada bulshada civil society ayaguna ka soo qayb gali doonaan
inta ka horeysa 7 maalmoodna shaqooyin wixii farsamaa la sii qabto labada qodob baa horta hadda ugu muhiimsanaa qodobka kalena waxa way haday jiraan wax un isfaham waa ama maaragtay madaxdu inay salkaan ay muhiim u tahay si loo xalliyo waxyaalo badan oo jira in marka ayaguna ay noqoto mowduuc kale oo yaala laakiin madaxdu inay ka wada hadlaan laakiin hadda aan saarayno xoogga iyo focuska arrinta ku saabsan ajandaha ama qorshaha 2016 inta uu shirka ahaa intaasaan la isku afgartay wixii su'aalaha qabtaan waa su'aasha ugu horeysa oo weydiinayo waxay tahay waxaa jira khilaaf aad u baahsan oo ka dhigay marka loo eego maamulka koonfur galbeed iyo Jubbaland galmudug iyo magaranaysa Jubbaland oo ka tabanaysa eedo maxaa dowladda federaalka arrimahaas shirka kuma soo qaadan oo iska yimid arrimaha la isku furfurin laakiin waa taan dhahay labaan u kala saarnay waxna waa wax ku saabsan 2016 oo ah tareen socdo aan sugin waqtiga uu nagu socdo waxna waxa weeye waxyaalahan kale ee khaaska ah la kala tabanaya mana u maleynaa wax weyn inay yihiin wax weyn ay jiraan laakiin wixii la kala tabanay waa laga wada hadlaya maxaa ka jira in Puntland ay diiday in shirka ay ka qayb gasho maadaama madaxda Puntland ama madaxweynaha Puntland uu yimid calaamisaarka madaxweynaha Jubbaland ee kaliya uu ka qayb galay taasa marka cadeynaysa inuu ka qayb galo marka wax ulaysa ma jirtaa Thank you very much.